kooxda AC Milan ayaa iska xaadirisay wareegga semifinalka Champions League tan iyo sanadkii 2006-2007. AC Milan ayaa lugta koowaad ee wareegga sideed dhamaadka gurigooda San Siro kusoo garaacday 1-0 kooxda SC Napoli. goolkan waxaa u dhaliyay xidiga khadka dhex uga ciyaaray AC Milan ee Ismail bin Nasir, balse kulankii xalay oo ka dhacay garoonka Maradona Stadium ayaa kusoo ilaaday barbaro 1-1. sidaas darteed celcelis ahaan 2-1 waxaa kusoo gudubtay kooxda AC Milano. AC Milan waa naadiga labaad ee ugu qaadista badan koobka Champions League marka laga soo tago kooxda Real Madrid. Milano intay ciyaaraysay koobkan waxa ay ku guuleystay 7 jeer oo ah in ka badan kooxaha kale. wiilasha macallin Pioli oo ku soo laabtay saaxadda wacdaraha koobka Champions League Milan inay soo gaartay heerkan waxa ay ugu dambeysay tan iyo 2007 ay koobka ka qaaday kooxda Liverpool 2-1 garoonka Olympic Stadium of Athens ee dalka Greece. jilkii u dambeeyay ee soo gaaray semifinalka qaadayna koobka Champions League 2007 waxaa hogaaminayay Dida, Massimo Oda, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Seedorf, Kaká iyo Filippo Inzaghi. waxaana kursiga keedka u fadhiyay macalinka reer Talyaani ee Carlo Ancelotti, balse jilka maanta waa jil kale. waxaa hogaaminaya Mike Maignan, Calabria, Tomori, Simon Kjaer, Hernandez, Tonali, Krunic, Diaz, Mesas, Benacer, Rafael Leo, Salman Karis, Olivier Giroud iyo Origi. waxaana keedka u fadhiya macallin Pioli oo ah macalinka AC Milan ku soo celiyay saaxadda wacdaraha koobka Champions League. bal qiyaas ma gudbi doontaa wareegga finalka Champions League ee ka dhici doona garoonka Istanbul Stadium ee dalka Turkiga.